الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله ولا ليال أيها المسلمون kelmaddu iyo odhaahda qofku odhanayaa waxay ciwaan iyo halkudheg u tahay qofka iyo waxa uu xambaarsan yahay hadalku wuxuu qeexaa waxa ku duugan qofka laabtiisa hadalku wuxuu qeexaa meeqaamka iyo martabada qofku uu yaalo waliajli haadaa baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu inagu waaniyey inaynu hadalkeenna u meel dayno waxaa afkeenna ka soo baxayana aynu xisaabinno rasuulka sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam mucaad ibnu jabal radia allahu canh markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama waaniyey ee nebigu uu la hadlay calayhi salaatu wasalaam mucaad wuxuu la yaabay in rasuulku ku waaninayo hadalka in la ilaashado markaasaa wuxuu yihi wa innaa lamu'aakhaduuna bimaa natakallamu bih rasuulkii ilaahayo waxaanu ku hadlayno miyaana lagu xukumayaa markaasaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hakiladka ummuka yaa mucaad wahal yakubu annaasa calaa manaakhirihim aw calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim mucaadow hooyadaa kuweyday oo kaa goblantay maaha habaar nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada ma habaari jirin waa kelima caabira kolkaasaa rasuulku wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam dadka miyaa naarta uu ugu ridaa wejiyadooda ama madaxyada miyuu naarta ugu tuuraa madax qofka ilaa wuxuu carabkooda ay ku kasbadeen mooyaane wax kale wixii carabkooda ay ku goosteen ayay naarta ku galaan oo naarta u goysa ayaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waliajli haadaa bay ahlu cilmigu yidhaahdeen qofka waxaa lagu qiimeeyaa hadalkiisa ayaa lagu qiimeeyaa rajaaxada caqligiisa iyo miisaanka caqligiisa waxaa lagu gartaa odhaahda afkiisa ka soo baxaysa markaasaa qofkii waxaad qiimeyn kartaa inuu yahay qof miisaaman iyo inuu yahay qof daa'ishahoo duulduulaya ama fudud oo dabayluhu ay sitaan allah wuxuu qur-aankiisa inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi yuusuf markii loo geeyey boqorkii masar xukumayey xaaladdiisana looga warramay nebi yuusuf allah wuxuu inoo sheegay boqorku wuxuu yidhi wa qaala almeliku i'tuunii bihi astakhlishu linafsi falamaa kallamah qaala inaka alyawma ladaynaa makiinun amiin wuxuu yidhi ii keena waxaan ka dhiganayaa la taliya oo naftaydaabaan u gaar yeelayaa si uu aniga iigu gaar ahaado oo uu ii siiyo talooyinka markii nebi yuusuf la hadlay ayaa boqorkii hadalkii nebi yuusuf qiimeeyey markaasaa wuxuu yidhi maanta agtayada waxaad ka tahay mid wuxuu doonayana gacanta loo geliyo la makansiiyey sidoo kale aamin oo lagu aaminay ummadda iyo hantideedii nebiyullaahi yuusuf muxuu ku qiimeeyey boqorku wuxuu ku qiimeeyey
كلامكي هذا الكي كصوب حي أفكيسا عليه الصلاة والسلام. رسول كانوا صلى الله عليه وسلم سقوا أرنتا إن قال هذا ليا أي رسول كوحي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قفك إلهي يمان انت قيامها الرميساني وناك هكو هدلو أما هيسكا عمس وحكو هدلو يا وناك هات أما هيسكا عمس محل ديدا يا مومنكو ماها طايش ماها مومنكو قف وحي أفكي سكسر دعبا يراهد ماها ومن هذا الكسو مريا مسكحرة وباندية وحودتك كل هدلو أما أفكيسا كسو بحيانا حسابية ويسو جيستا والنبي قوينو تلمامي هذا الذي قار ضدكو آني أميل دين إنو قفكي هذا الكاكو هدلي وقلافت معنا قيامة. ورسولك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وحقفكو كو هدلا إري آنو وحدي بواركين حبو يسكورنيا يسقو دباتبا وماركو حبو موضي يحبي يلين سببت كلمة دا أيو نار تقوده دا وقلنا دعا تضباطا سلام النبي قولي صلى الله عليه وسلم. وعد ما انت أرقص الرقوة وين عراله واتماها دا مدحو دا تنتا عدا كتا الله يا أراه دا أفكو دا كصوباحي ساعي تهي كافية كالديري قف كاسو مركو هاد الله bulshada uu la hadlo wuxuu inoo soo bandhigay wuxuu ku duugnaa naftiisa ku duugnaa wuxuu inoo soo bandhigay meeqaamka uu inaga mutaysanayo markaasaa midna la odhanayaa afku kuma go'o alla hadal wanaagsana oo caqli badana midna waxa loo wariya inaga aamusiya ilaa afaan allahayn ma qabatid war qadhim laga siiganaya umada ka qabta labada ruux baa kala saaray waxa laga yaabaa inay kala qurux badan yihiin oo ka af Soomaaliga xun leh afka xun lihi ويهي مد جيت كالله وعدان كي قروح ذا سكو داونس ككلنا ويسكي هاي أردو فير أي الله جيابه لكن مركي لبادو بقولها يمادان موقال كود اللي ما إيجيو وحل إيجي يا هذا الكيل لقول يمادين مركا سامنا الله جو كمان يا الله أرانا يا ورنينكو عقل بدنا من الله أرانا يا قروح ذا كوقت أروح ويسكي قروح بدنيه الله ما هو سيء إن بدنا وما أنت ميريها كهذا الشاوى النعاس والله ما هو سيء waxaa laga yaabaa ka marka uu hadlaa in leenahay wariya inaga aamusiya inuu dadkaba inuu waxa weeye u taliyo ama uu yaani hogaamiyo ama uu madax u noqdo doonayo dadkuna waxa laga yaabaa inay qalbiga ka leeyihiin warika inaga aamusiya haddaba qofku muxuu isku qiimeynaya wuxuu isku qiimeynayaa waxa oraahda afkiisa ka soo baxaysa waxa culimadu famul aaqil muljam إذا أراد الكلام أحجم وفم الجاهل مطلق إذا شاء الكلام أطلق قفك عقلك بدل أفكي سوحني مركو إسرائيل هذا الوسط قبنية حرنا قلاه هذا اللي يقام موضوع هذا الأنكير هذا ماشي عنيك إيميل لكن قفك وحمد قرأت تضاهي أفكي سوى واحد كفرا وبلا لنجح وبلا ضبال وعلى الله يحيي كسر دعوه ورنيا ماذا أرق أرمان والبحال بحياه هذا الكود محال بحني ماذا أرق أمر اللي جلس وتاجرون صو ماذا أرق معد با كو قصبتي إنه هضله ومايا وحكو قصبي عقل ضره إيوه توازن إيه ميزان لام باكو قصبي ولأجل هذا با النبي صلى الله عليه وسلم ويري إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم متكينو حكو هاد لا كلمة إلهي راليها شيسا أنو مودين إني قادي سالكي قادي مركزا إلهي رضواني راليها شيسا وقرأ تصبيح وسكا تصبيح صدي وذكري كلمة حق بو كشيء قال لبا يسحيستبو وكلا يعني قرنقي وكلا حكومي اسم الله يسوي حبات كويلسة لكن عند الله هو عظيم مركز إلهي سبحانه وتعالى كسي يرى لها شيء
midkiina wuxuu ku hadlaa kelmad aanu cadhada ilaahay oonu islahayn ba halkanay gaadhaysaa markaasay ilaahay cadhadiisa u kasabtaa ilaa inta qiyaamaha laga gaadhayo. imisaa marka la weydiiyo war maxaad kuu kalifay fiyus baan ku doonayay buu odhanaya ya waxaan islahaa dadku ha daawadaan wallahi iska maaralow bay ahayd waan majaajilaynayey dhabiga ma ahayn hadalkii aan idhi maalintii dhaweyd cadhaya keentay xaal ka qaata waa maalin walba. marka miisaanka qofka iyo meeqaamka qofka islaamku uu dhigay waxaa calaamad iyo tusaalayaasha tusa ka mida odhahda afkiisa uu ka odhanaya qul ma tasmacuuna astaqfir allah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره ذاكرون الأبرار. عباد الله ولا ليال الله سبحانه وتعالى هذا الكفي عني هذا الكحن وكلا قيحي وحانو إلهي كم تلي سبحانه وتعالى لبجيب ومدنا مديي مدون أكسن مدنا ويهي مدو حويا وحبة ترى وتشردها الله صاري. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إلهي كلمة وناكسن حكم مثالي قيد لامه سنعرك كشريرين شردي سردوك كتا الله مره هذا نمر بكيني سو يعني مره هذا يهي مدتك أنفعيسة سيدا أولي أيها المسلم يا عبد الله bulshada aad la nooshahay ee muslimiinta waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa doonayaa oo ku amray inaad noqoto mid anfaca ee aanad noqon mid dhiba. hadalkaagu inuu noqdo mid ummadda ururiya oo isu keeno mid kala geeya aanu noqon. hadalkaagu inuu noqdo mid lagu soo hirto oo aan laga irdhoobin. hadalkaagu inuu noqdo mid samaha ka taliya oo aan xumaha ka talin. hadalkaagu inuu noqdo mid meeqaamkaaga iyo martabadaada bulshada dhexdeeda kor u qaada oo aanu noqon mid meeqaamkaaga hoos u dhiga oo aan lagugu mahmaahin. nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday. dadka had iyo jeeraa leh baraha bulshada ka hadlaya ee waa weyn anuu ciyaalka la hadli maayo iyo carruurta ku waalatay dimuqraadiyadda yacni waxa weeye u haysta wax lagu faano u haysta oo hadalkaygu xor baan u ahay iska odhanayeen garanayn islaamnimadu inay qofka hadalkiisa iyo ficilkiisa camalkiisa samihiisa iyo xumihiisaba islaamku inuu qeexay. laakiin dadka waaweyn ayaan la hadlayaa ee cadceed casar ee gabalka yacni dhacaya oo kale ee cumrigooda intii badnay tagtay waxay soomaalidu tiraa cumri tegey ceeb laguma sagootiyo. hadalkaaga ilaasho. hadalkaagu ha noqdo mid bulshadaada isu keeno oo bulshadaada dhexdeeda meeqaam iyo martabad wanaagsan ku dhiga. mid maalinta aad maqan tahay lagugu tabo hadalkaagu ha noqdo. mid samakatalisan noqo. mid golaha uu ka hadlaa wanaag iyo khayr uu ku kala tago ha noqdo hadalkaagu. laakiin ha noqon mid golayaasha sharka iyo xumaha ka baaqa. mid marka uu iridda ka soo galo iridda kale dadku ay ka baxaan idhahda inkaar qabihii baa soo galay khayr ma yaalla meesha ha noqonin. waayo islaamnimadu taa ku fari mayso. muslimnimaduna sidaa maaha. sidaa daraaddeed hadalkaaga waa inaad u meel daydaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataa. waa inaad ogaataa hadal kastoo afkaaga ka soo baxay ilahay inu qorayo. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid buu ilahay yidhi. qofku hadal kuma hadlo ilaa garbihiisa waxa taagan iyo agtiisa malag heegana oo wuxuu ku hadlaba xifdiyaya oo waxba aan iloobeyn. waxna ma iloobo mana habsaamo. waa heegan waana xaafid. waxna ma iloobo mana habsaamaayo oo maqan yahay la odhan maayo. waliajli haadaa culamada qaar markay aayadda fasirayaan waxay gaadhsiiyeen xataa khuurada qofka uu khuurinayo waa la qorayaa bay dhahay culamada qaarkood. hadhow waa la kala saarayaa wax ciqaab ka dhasho ama abaalmarin ka dhalatay iyo waxaanay ka dhalan. laakiin wax kastuu ku hadlo waa la qoraya bay culamada qaarkood yidhahdeen.
ahlu cilmiga qaarna waxa la qoray waxa weeye wixii ama uu thawaab iyo xasanaad ka dhalanayo ama sayi'aad iyo xumaan iyo ciqaab ka dhalanayo sidaa daraaddeed ayuha almuslim yaa cabdallah afkaagu ha noqdo mid aad adigu xakamayso oo hadalka aad ku hadlayso aad eegto waxa uu hadda tarayo iyo waxa uu hadhow tari doonaba hadduu hadalkaagu yahay mid hadda wax dhibaya ama hadhow wax dhibaya inaanad odhanin imisaa kelmad aad odhan lahayd caqliga marka aad ku miisaanto inaad dib u dhigtaa caqliga uu keenaya marka waa inuu inahagaa cilmiga iyo caqligu islaam baynu nahay shareecadeena iyo diinteennu waa inay hormood inoo noqotaa mid ina hagta oo ina hanuunisa